beel kamida beelaha dega goboladan Awdal iyo Salal ayaa maanta waxay kulan ku qabatay xarunta Maana Guest House ee magaaladan Boorama waxayna kulankeedan ku falanqeysay arrimaha dhaqanka ee gobolkan muddooyinkii ugu dambeeyay ka taagnaa khilaaf xoogan abaaraha iyo arrimo kale waxaana munaasabadan ka hadlay waxgarad waxaana hadaladooda kamid ahaa taa kulli qeylaqaamu ayaan ka soo jeedinaynaa dawladda iyo dadweynahaba waan u jeedinaynaa in abaaraha gurmad loo sameeyo oo dadka dhibaataysan arrimooda loo gurmado waan soo jeedinaynaa awal marka qodobka dhaqanka ee ku saabsan ugaaska racfal mowqif bay ka lahayd haddana mowqifkaygu waa meel nagu marka hore haddii mafukuli lagu keenay oo la yidhi muxuu ahaa ugaas baan wadnaa ha la soo dhaweeyo waxaan nidhi annagu waxaan haddii habar cafaan nahay waxba kama qabne arrinta aan isku gaadhno wax naga siiya maalintii ugu horreysay halkaa rays bay ahayd way ka soo waaday si waxba way ka qabsoomi waayeen muxuu ahaa dawladdaa timiday halkanaa lagu wada hadlay waxay u dhacday arrintu muxuu ahaa waan soo dhaweeyaa la yidhi annaguna marka dambe de wixii tala ah iyaynu ka wada geliya way soo dhaweeyeen arrinkii sidaa ahaa muxuu halkan la isku ogaa inaan dhinacna loo dhaqaajino laakiin maanta mar haddii markii saddexaad laga baxay arrintii waxaan caddaynaynaa waan ummadda u sheegaynaa inaanana khusaynin qurbajoog marka la leeyahay ama dawladaha ay naga jiraan runtii xalay oo kale waxaan daawanaya telefishinada aad baan u muraaqood burcoo kale markaa talaas caqloo kale markaa ceergaabo inta mucaawino la bixinayay amba daawo ha noqoto amba cunto dadka loo keenay ha noqoto